hooyada sabab mu noqon kartaa ilmaha dhalas inuu noqdo ilmo dhagoole ah. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Magacaygu waa Abdulrahmaan Xaaji Shariif, dhakhtarka cunaha sanka ee dhagaha Isbitaal Kaafi. Mowduuca wacyigelinta maanta aan ka hadlayno waxaa loo yaqaanaa deafness ama maqal-yarida ilmaha ay ku dhashaan ama ilmaha ayagoo dhagoolaha dhashaan. Sida aan naqaano Ilaahay wuxuu noo sameeyay dhaga aan wax ku maqalno. Dhagahaas samaysankoodu waxay soo bilowdaan markii ilmaha caloosha ay galaan 6 ilaa 8 isbuuc. Markii ilmaha caloosha Ilaahay ku sameeyo waxaa bilaabato xubnaha dhagaha inay samaysmaan. Markii 18 isbuuc la gaarana Ilaahay wuxuu u sameeyaa dhagahaas qaybtii wax maqli lahayd oo loo yaqaano auditory pathway. Isla markaas ilmahaaga wuxuu awood u leeyahay in uu wax maqlo. Maqalkaas wuxuu noqon karaa oo maqlaayo oo u horeeyo waa wadna garaaca hooyadii caloosha ku siday. Ilmaha markuu gaaro 25 ilaa 26 isbuuc wuxuu awood u leeyahay in uu wax maqlo. Wax maqladaas oo ah mid banaanka ka ah meesha Ilaahay ku abuuray oo ah minka ama caloosha hooyada. Dhawaqaas wuxuu soo gaari karaa dhawaq muffled sound la dhaho, maadaama ilmaha ay ku wareegsan yihiin biyo kuna jiro caloosha hooyadiisa ama minka hooyadiisa uu ku jiro. Waxay u soo gaari karaan wax loo yaqaan muffled sound oo ah cod aan mataqaanaa clear ahayn. Markii ilmaha gaaro waqtiga dhalashada waxaa la filaa ilmo maqalkooda fiican yahay wax maqli kara inay dhashaan. Markaas kadib waxaa la heli karaa in ilmaha uu noqdo ilmo caadi ah oo maqalkooda fiican yahay iyo ilmo aan maqlin wax maqlin, taas oo hooyada u keeni karto walwal badan. Sababta hooyada u keeni karto ilmaheeda inaysan wax maqlin waxaa kamid ah sabab soo socdo. Haddii hooyada markii uurka leedahay aysan raacin habraacyada ay u sameeyaan dhaqaatiirta haweenka hooyada la socdo inta ay dhalaanka wado oo ay kamid yihiin wax loo yaqaan antenatal care-ka, waxaa imaan karo inay hooyada iska isticmaasho daawooyin aan loogu talagelin kuwaas oo saameyn karo ama u gudbi karo ilmaha caloosha ku jiro. Sidoo kale hooyada haddii ku dhacaan infectionno soo laabto oo loo yaqaano Torch disease oo ku dhaco 3 bilood u horeysa especially hooyada markay uurka leedahay waxay sabab noqon kartaa ilmaha dhal doontid inay noqdaan ilmo dhagoole ah. Sidoo kale nafaqa darada iyo hooyada inay mataqaanaa nafaqa fiican helin iyo ilmaha inuu mataqaanaa ku dhaco wax loo yaqaan neonatal hypoxia oo ah in oxygenkii hoos u dhaco waqtiga dhalmada waxay keeni kartaa ayadana jaanis kor u qaadi kartaa jaaniska ilmaha inuu noqdo ilmo dhagoole. Sidoo kale haddii dhaxal ahaan cidda aad ka guursanaysid ama hooyada iyo aabaha isqaba ama ilmaha filaayo ay yihiin dad walaalo ah ama qaraabo ah familkoodana ay ku jirto dad dagala waxay keeni kartaa ayadana kor inuu qaado jaaniska aad heli kartid ilmaha inuu noqdo ilmo dhagala. Sidaas darteed hooyo kasta oo walaac ka qabto dhalaankeeda maqalkii hoos u dhacay ama maqal-yarida waxaan si taxadar leh oo aan ugu sheegaynaa in ay sameyso baaritaano marka ilmaha dhashaan. Sida caadiga ah ilmo kasta oo isbitaalka ku dhasho waxaa sida caalamiga loo sameeyo wax loo yaqaano hearing screening oo ah in la hubiyo ilmaha inta isbitaalka laga bixin maqalkiisa inuu fiican yahay. Taas waxay kor u qaadi kartaa jaaniska haddii ilmaha uu dhagool noqdo mustaqbalka looga dhigi karo ilmo wax maqlo. Adduunka hadda wuxuu maraa ilmaha markay 9 bil gaaraan in loo talaali karo qaybta maqalka oo loo sameyn karo qalliinka loo yaqaano cochlear implant. Haddii aad ka caawinayso ilmahaaga in sidii la rabay wax maqlaynin ama aad ka shakisan tahay ilmihii inay maqalkooda hooseeyo fadlan nala soo xiriir si aan ku caawino.